deeqdan lacageed waxaa iska soo aruurshay siyaasiyiin ka danqaday dhibaatada iyo duruufta nololeed ee haysata kumanaan shacab Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Garas Baaleey oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. siyaasi Muudey ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga baahan yahay in si isku mid ah oo uga tacsiyeeyo goobaha musiibooyinka ay ka dhacaan. Xasan Cabdiqaadir Muudey ayaana boqolaalka shacabka ah ee ku dhibaataysan deegaankani lacagtan gacantiisa ugu qaybinayay. mudana madaxweyne waxa dhib ka dhacay gobolada Soomaaliya gobol ka mid ah oo aniga laftirkeyga aan ka tiiraanyooday waad ka tiiraanyootay idaacadihi ka sheegtay meel kasta ka sheegtay anigu laftirkeyga tiiraanyadaas way itaabatay laakiin mudana madaxweyne 80 caruur ah oo mustaqbalka Soomaaliya wax badan u qaban karay ma soo gaarin tiiraanyadaas ma aysan soo gaarin mudana madaxweyne miyaysan ku soo gaarin in dhibkan meesha ka dhacay mise wax baa jira oo aanan mataqaanaa oo qarsoon waxaan jeclahay in mudana madaxweyne tiiraanyada ka dhacda gobolada Soomaaliya inay si cadaalad u dhacdo dadkaani waa dad ka soo barakacay gobolada dalka waxay u soo barakaceen gobolka Banaadir deegaankan ayayna u soo barakaceen la yiraahdo Garas Baaleey dad iska leh dhulkooda iska leh ayaa marti galiyay oo soo dhaweeyay hay'ad samafalana u iman maamulka gobolka Banaadir u iman dawladii dhexe wasiirka caafimaadkan u iman wasaaradihii gurmadka adiga ku soo dartay wasaaradahan u iman mudana madaxweyne in halkaam ay ku dhimatay 80 caruur ah kaamka kalena laba kaami ahaayeen kaamka kalena ay ku dhimatay 70 caruur ah oo aan dawladda ka tiiraanyoon mudana madaxweyne ma qabato shacabka Soomaaliyeed ma qabato waa la tiiraanyooday Puntland wax ku dhacay muwaadin u dhashay Soomaali ayaan ahay waa la tiiraanyo sida oo la tiiraanyootay laakiin 70 caruur meeshay ku dhinteen gaajo iyo dhibaato iyo macluul meeshay ugu dhinteen inaad igala tiiraanyoto sida Puntland kala tiiraanyooday ahayd waxaan rabaa mudana madaxweyne tiiraanyadaas iyo in ay gacantaada soo gaarto waa shacabkii adiga aad matalaysay ee mas'uuliyadda adiga u qaaday waa shacabkii aad ku faanaysay oo aad lahayd aniga iska leh waa shacabkii aad dhahaysay in aniga ayaa cadaalad u sameeyay maamulka gobolka Banaadir waxa leeyahay deegaankan Garas Baaleey dadka u soo qaxay ma ahan gobolka Banaadir kaliya ma ahan wixii ka yimaadeen gobolada dalka siyaasadii waa halkeedii laakiin dadka deegaankan u soo qaxay maamulka gobolka Banaadir waxa u soo jeedinaa in ay soo gaaraan ay u yimaadaan ay arkaan hadaysan wax u awoodin xitaa ay la tiiraanyoodaan waxa ay maanta haysato gudoomiyaha kaamka barakacayaasha Sablaale ayaa sheegay in 80 caruur ah ay mar qura ku geeriyoodeen deegaanka Garas Baaleey isla markaana dawladda Soomaaliya aysan ka helin wax kaalmaha meeshan waxa ku dhintay 80 caruur oo iyaale waxa u dhinteen shumbiyood jadaaco gaajo odayaal shabeeb gaajo iska dhintay jir hadda dhinteena waa meeshii goof dad waay wax lagu leeyahay intuu madbuugis xalay qaado ninkii sadhantii oo goofkii antan ku dhintay oo meel geeyna gobolka Shabeellada hoose yaa mataqaanaa yaa ka soo barakacay dadkan degmada Sablaale intii ma lagu duugay macal nuur meesha u dambeysay oo baashan eelash ka kor yaa qabriyaashii yaa jiraan nabadoonka deegaanka Garas Baaleey nabadoon geedi fardhiya ayaa ugu baaqay guddiga abaaraha heer qaran inay soo gargaaraan dadkani dhibaataysan nimanka la yiraahdo qaxootigay u gargaaraan nimanka Nuur Baaruud oo hogaamiyo Sheekh Nuur Baaruud waxaan ku leenahay cadaalad Sheekh Nuurow dadkan kala arag hal ugu tuso adiga kale waa lagu tusay hal ugu tuso hal ugu tuso dadkan ma garatay ilaahay uga baqa dadka dhahayaan anaga gurmadka abaaraha ah kuwaan haday arki waayeen aniga ay meelo kala arkeen degmo hebel walaha loo diray degmo hebel walaha loo diray degmo hebel walaha loo diray degmo war waxaas ilaahay ha looga baqo meeshii wax dhib ka jiro hala tago waa Soomaali dadku waa Islaam waxaan leeyahay dadkan loo soo gurmado dhibaataysan
deegaanka garas baalley ayaa waxaa ku sugan kumanaan shacab Soomaaliyeed kuwaasi oo ka soo barakacay abaaraha dalka Soomaaliya ku dhuftay sanadkani iyadoo dadkaasi xaalad nolol xumo ay ku haysto deegaanadaasi. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Honkebel TV, magaalada Muqdisho.